Assalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada janaalkayga Ismaaciil Cabdulle. maanta waxaan idiin hayaa warar aad muhiim u ah oo si weyn u saameynaya dunida oo dhan. Waxaan si gaar uga hadli doonaa 3 arrimood oo waaweyn: xiisadda bariga dhexe, xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, iyo dhaqaalaha adduunka oo isbedel weyn ku socda. Marka fadlan haddii aad ku cusubtahay janaalkayga, ha ilaawin inaad subscribe gareyso, like saarto si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay. Aynu ku bilaabno qodobka koowaad. xiisadda bariga dhexe, gaar ahaan u dhaxaysa Israa'iil iyo Gaza, wali waa mid aad u kacsan oo sii xoogeysanaysa maalinba maalintii ka dambeysa. Dagaalkan ma ahan mid cusub, balse marxaladda hadda uu marayo ayaa noqotay mid aad u khatar badan kuwii hore. Waxaa jira weeraro isdaba joogto ah oo ka dhacaya Gaza, halka oo dad rayid ah ay si weyn u saameeyeen. Dhanka kale, Israa'iil waxay sheegaysaa inay difaacayso amnigeeda, balse dunida inteeda badan waxay walaac ka muujinaysaa khasaaraha bani'aadanimo ee sii kordhaya. Arrinta ugu weyn ee xiisaddan ka dhigaysa mid caalami ah ayaa faragelin dalal kale. Iiraan ayaa lagu eedeeyay inay taageerto kooxaha kasoo horjeeda Israa'iil, halka Mareykan uu si cad u taageero Israa'iil. taas waxay keentay cabsi ah. Sidoo kale, saameynta dagaalka kuma koobna bariga dhexe oo keliya. Qiimaha shidaalka ayaa kor u kacay, ganacsiga caalamka ayaa saameyn dareemaya, waxaa sii kordhaya dadka qaxootiga ah ee ka barakacaya goobaha dagaalka. Marka la eego xaaladda, dad badan ayaa isweydiinaya, xal ma jiraa? Ilaa hadda, dagaalada nabadeed ee caalamka ma aysan keenin natiijo muuqata, taasoo ka dhigaysa mustaqbalka mid aan la hubin. Qodobka labaad, siyaasadda Soomaaliya. Haddii aan usoo gudubno gudaha Soomaaliya, xaaladda siyaasadeed ayaa weli ah mid xasaasi ah, inkastoo ay jiraan dadaallo horumarineed. Dowladda Federaalk Soomaaliya waxay sii wadaa dagaal ka dhanka ah Al-Shabaab, iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay guulo la sheegayaan meelo badan. Si kastaba ha ahaatee, kooxda Al-Shabaab weli waxay awood u leedahay inay weeraro ku fuliso meelo kala duwan, taasoo muujinaysa in dagaalka uusan weli dhammaan. Dhanka siyaasadda, waxaa jira khilaafaad u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, gaar ahaan arrimaha awood qaybsiga iyo doorashooyinka mustaqbalka. Arrimahan ayaa mararka qaar dib u dhigaya horumar siyaasadeed ee dalka. Amniga caasimadda Muqdisho ayaa soo hagaagaya marka la barbar dhigo sanadihii hore, balse weli waxaa jira cabsi la xiriirta qaraxyo iyo weerar lama filaan ah. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la xuso in shacabka Soomaaliyeed ay aad u doonayaan xasilooni, horumar dhaqaale, iyo dowlad si hufan u shaqeysa. Marka la eego guud ahaan, Soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad kala guur ah, halkaas oo ay jirto rajo horumar, laakiin sidoo kale ay jiraan caqabado waaweyn oo u baahan xal. Qodobka saddexaad, dhaqaalaha adduunka. Ugu dambeyn, aan ka hadalno dhaqaalaha adduunka oo si weyn u saameynaya nolosha qof kasta. Sanadihii u dambeeyay, dhaqaalaha adduunka wuxuu wajahayay caqabado ay ka mid yihiin sicir barar sare, qiimaha shidaalka oo kordhay, iyo qalqal ku yimid ganacsiga caalamiga ah. Xiisadaha sida dagaalka bariga dhexe iyo ka Ukraine ayaa si toos ah u saameynaya suuqyada caalamka. Marka shidaalku qaali noqdo, wax kasta oo kale ayaa qaali noqda: cuntada, gaadiidka, iyo adeegyada kale. Sidoo kale, tiknoolajiyada cusub sida AI-da ayaa bedelaysa suuqa shaqada. Shaqooyin badan ayaa isbedelaya, halka qaar kalena ay gabi ahaanba baaba'ayaan, taasoo dadka ku qasbaysa inay bartaan xirfado cusub. Dalalka saboolka ah, gaar ahaan Afrika, waxay si gaar ah u dareemayaan saameynta dhaqaalaha, sababtoo ah waxay ku tiirsan yihiin wax soo dejin badan iyo gargaar dibadeed. Su-aasha ugu weyn ayaa ah mustaqbalka dhaqaalaha sidee uu noqon doonaa? Khubarada qaar waxay aaminsan yihiin in xaaladdu hagaagi doonto, halka kuwa kalena ay digayaan dhibaatooyin sii socda. Aniga aragtidayda, waxaa muhiim ah in dowladda iyo bulshada ay la qabsadaan isbeddelka si looga hortago dhibaatooyin waaweyn oo dhaqaale. Marka guud ahaan, dunida maanta waxay wajahaysaa isbeddello waaweyn, dagaallo siyaasadeed iskhilaafsan, iyo dhaqaale isrogrogaya. Adiga maxaad ka qabtaa arrimahan? Fikirkaaga ku qor qaybta commentiga. Ha ilaawin inaad like saarto, share gareyso, oo aad subscribe sameyso channelka si aad ula socoto wararka cusub. Mahadsanidin.